horreyn sirsaaka waxaan soo marnay xafiisyadii xafiisyadaas waxaa macnaha mar walba aan la baahida ummadda iyo wixii xaqdarro wada inaanu ka hadalno xaq baan nagu leenahay waxaa weeye tii hore ayaanu xaqdarro uga cadanaynay waxaa ka daran tan hadda timitay waxay odhanaysaa qofkii xafiiska sii joogay asagoona dukumentigiisa loo eegin aqoontiisa loo eegin akhlaaqdiisa loo eegin waxaa la samaynayaa in la dhaho dawladdii cabdi baad la soo shaqaysay oroska ta kale dee intaasoo balyan baa ayaa deegaanka ka shaqaynaysa intii oo balyan haddii la eriyo intii oo qof haddii la eriyo hal ma imanayo kolba inunbaa uurtu hoodh bashtan yaa noqon waxaa weeye inta waaweyn haddii la beddelay inta yaryarna in la mara ma ah tusaale aniga hadda xafiiskan ka shaqeeyoo kale warbaahinta wax iyada la ariyay ma jirto xafiiskayga laakiin xafiisyada kale beeraha oo kale la masaale xafiiska ugu daran waa ka beeraha macnaha qof uu wato ta kale wasiiradii aanu daacadda ka rabnay iyo aanu islayn ayagay xaqdarra ku dhacday xal bay keenayaan waxay samaynayaan waxay samaynayaan xaqdarradiiba iyo ururkana lagu beeraba ayagaa samaynaya urur kale tu lagu beeray samaynayaan annagu nabadgelyaan u baahannahay horumar baan u baahnay horumar iyo nabadgelyo kolka la helana waa kolka cadaalad la helo cadaaladdii waa in la helo waxa weeye ordhadku ha shaqeeyo qofka ordhadka la yidhaahdo xafiiska waa inuu ordhad ka shaqeeyo oo la dabagalo hadda tusaale waxaa jirta laba wasiir oo labadii wiilay walaalaha ahaayeen ayagiibaaba cusubay ka hormay walaaladoodna shaqaalayaan war aniga kan waa laygu fahmiyey kaayigee marka waxaannu leenahay xukuumadda madaxweynaha aanu u gudbinaynaa inuu ordha degdeg ha sameeyo ordha degdeg maaha waa inuu sameeyo xaqdarrada intaa leeg macnaha walaalkay iigu qora xafiiska agaasinka maamulya lacag igu qor anna hadduu dakli yahay waxaad igu qortaa muxuu ahaa bahalkii ii sheeg xaliinta igu qor anna walaalkay macnaha in isaa laysu dabamarsado qoladii hore yar reebaaliye yar fashilan bayba ahayd tan baaba ka sii orod badan waxaa weeye mar walba ma soo manaanayso dhallinyaradu dukumentigoodu wuxuu u gooyey leeyihiin dukumentigoodu wuxuu u gooyey dukumentigoodu hadduu ariyey ayagoo raalli ahay fadhiisanayaan haddii macnaha aqoon laysku shaqaalaynayo dhallinyartana waxaan leeyahay haddii qofkaa aqoon badan la keenay xafiiska cabashadaada dee waxba kama jiro macnaa taa waa lagaa badiyey laakiin adigoo boos ku qornaa dembiinaan lahayn cabdi buu la shaqaynaya kollaba in lagugu ariyo adaa uurtaada wax kale ku jira muwaadin dhalayna ma tiid kaasoo kale inaad iska celiso weeye waxaa weeye ta kale bulshadu ay ka cabaado hadda macnaha mar kasta laga cabaado dad aana hal degma ah ku lahayn kilalka iyo waxaa laga yaabaa dad 7 degmo ku leh inay dadkii 7 degmo lahaa loo maareeya qaataan dadkii macnaha hal degmo aan ku lahaynna inuu 4 wasiir helo macnaha taa cadaalad darrada intaa leeg looma dulqaadanayo oo ummaddu ma dulqaadanayso waxaa weeye taasoo kale in macnaha positionka laysu eego dadku macnaha in macnaha si cadaaladaha loogu wax qaybiyo toddobada kii lahaa iyo kii aan hal degmaha ku lahayn in laysku xaquuq laga dhigo maaha ta kale waxaannu ka codsanaynaa dawladda adeegyadii jidad socday baa jira waxaa jira dhismayow la waday dhismayowgii la waday ha la dhaqaajiyo sidoodii wax walba ha la dhaqaajiyo aan lagu mashquulin qof shaqaynayo in macnaha la dhaho maxaad hebel baa shaqaynayayo hebel waa heegiyo war wax heega la yidhaahdo ma jirtaan aanu leeyahay waxaan haddaan xisbigan aan sii bunbuunino xisbi tayala buu noqon doonaa oo dhib inoo keena marka waxaa weeye waxqabad baan u baahannahay way daalan tahay ummaddu dhallinyartu waxay u baahan tahay cadaalad iyo sinaan iyo dukumentigooda wuxuu u gooyo inay warqado wada wataan hadda waa kuwan waa imisa inta warqadaha wadato xafiis walba ayaa ku garan baa la leeyahay marka hadalkii waxaannu ku soo koobaynaa cadaalad iyo xaq walba ta kale hadda macnaha qof mas-uul oo xilka laga qaaday
اللي لسيد دبا دكتور معناها عذر لسيد بيرا قفك انتا سو تاغيرو وادو دونا ليهي انتا سو تاغيرو ليهي تصالح حتى قاربا waxay soo dhigayaan qadka Allah yaclam Axmed ilka casay gurigiisa askar ku wareegaysan tahay taasoo kale waanu ka xunnahay inay ku wareegto mas'uulkii shalay loo ahaa mas'uulka xilka macnaha Mustafa ku wareejiyay xilkiisi taageeridii macnaha Mustafa ku taageerayo Mustafa ku wareegiyay taana waxa weeye hadii cadaalad darro Mustafa uu falo asagana bari ku kor soo qaadeen ba asagana legti taa waxaan leeyahay xildhibaanada ayaga si sharci ah lagu qabto qofka ilaa xasaanada aan laga qaadin in la iska xiro oo sharciga la jabiyo daawayaay ma qabiil baan soo goornimadna haduna sharcigu shaqeyneen mar walba sharcigu ha sareeyo haddii kaloon meesha sharci shaqeynin daawayaay in hebelo maxaad booska ku heshay marka waxa weeye cadaaladdu ha shaqeyso cadaaladdu ha shaqeyso midnimadu ha shaqeyso haddii aad macnaha laba xaafadood oo isla keen haddii aad tiraahdo isku xaquuq ma marka hadalkii waxaan ku soo koobaynaa midnimo iyo cadaalad baan rabnaa iyo Soomaali oo la mideeyo iyo cadow kale oo deegaanka loo beerin ayaan rabnaa